wali taariikhda Soomaaliya kama aysan dhicin in Kenya ay sidaan ula dhaqanto dawlad ka jirta Soomaaliya burburkii kadib iyo ka hor intuba goodinta iyo cagajugleynta Kenya ayaa ka sii daraysa waxaana xafiisyada dalkaasi ka soo baxaya shuruudo iyo go'aano diblomaasiyadeed oo ay dunidu la yaabtay sida ay qoreen warbaahinta caalamka 24 saac ee la soo dhaafay go'aan xun iyo luqad adag oo aysan Soomaaliya iyo Kenya kala mudneen ayaa loo arkay qoraalkii dalkaasi ka soo baxay ee lagu eriyay safiirkii Soomaaliya ee Kenya Ambassador Maxamuud Axmed Nuur Tarsan hase yeeshee arrintu waxay ka sii dartay markii 3 qodob oo la yaab leh ee Kenya ka soo saartay jawaabtii Soomaaliya ee xalay loo diray dalkaasi Kenya ayaa Soomaaliya u sheegtay inay fuliso 3 qodob si loo dhameeyo khilaafka diblomaasiyadeed ee u dhaxeeya labada dal shuruudaha ayaa kala ah 1 in Soomaaliya ay si degdeg ah uga laabato qariirada ay ku soo bandhigtay London taasi oo ay Kenya ay aaminsan tahay inuu ku jiro dhul ay leedahay 2 in Soomaaliya ay ogeysiiso shirkadihii London ku iibsaday xirmooyinka gaaska iyo saliidda ah in aysan aagaasi Soomaaliya lahayn sida ay Kenya hadalka u dhigtay 3 in Soomaaliya ay ka laabato kiiska dacwadda badda ee hor yaalla maxkamadda caalamiga ah ee ICJ laguna xalliyo meel ka baxsan maxkamadda warbaahinta dalka Kenya oo aad uga hadlay qodobadan iyo khilaafka labada dawladood ayaa sheegay in Kenya shuruudaha ka soo baxay ay ku difaacayso madaxbannaanida dalkeeda ayna ku qasban tahay Soomaaliya in ay qaadato sidoo kale shacabka iyo guud ahaan bulshada Kenya ayaa aad uga hadlay saacadii la soo dhaafay arrintan waxayna u arkaan inay tahay mid saxan oo dalkooda lagu difaacayo ganacsatada qaadka ee dalka Kenya ayaa ku hanjabay inay joojin doonaan qaadka ay u iibgeeyaan Soomaaliya oo ah suuqa ganacsi ee ugu weyn oo ay dunida ku leedahay ganacsatada qaadka ee Kenya tani waa hadalkii ugu xumaa uguna hooseeyay ee loo adeegsado Soomaaliya oo iyada laga filayay inay joojin doonto qaadka ugu yimaada Kenya oo ah wadnaha ganacsiga ee dalkaasi afayeen u hadlay ganacsatada qaadka ee dalka Kenya ayaa yiri qaadka waa meesha ugu jilicsan oo ay Soomaaliya beegsato markasta oo ay raadinayso dareenka Kenya marna qaadku kuma iibsan karno madaxbannaanida dalkeena waana inaan iska rab taagnaa dawladdeena diini maxamed diini oo la hadlay idaacadda kulmiya ayaa arrinta ku tilmaamay aragti aan wanaagsaneyn oo muujinaysa in Kenya ay ka rajo dhigtay natiijada ka soo bixi doonta maxkamadda caalamiga ah ee ICJ waxay la tahay aragtidaasi waa aragti doqonnimo iyo naflacaarinimo ah oo aan haba yaraatay u qalmin in mas-uulka hadlaya dawladda Kenya magaceeda ku hadlaya oo saas u hadlo waxayna tusinaysaa rajo la'aanta ay ka muujinayaan dacwadda maxkamadda ka socota inay ku qanceen in laga guuleysanayo ayay u eg tahay marka qofka yani isleeyahay waa laga guuleysanaya wuxuu isleeyahay qaab kale oo aad wuxuu xagxagato fiiri mana filayo in ay tahay awoodda dawladda Soomaaliya ama madaxweynaha ama ra'iisul wasaaraha ama baarlamaanka arrin xitaa go'aan ka gaari karaan maaha marka maba islahayn heerkaas ayuu macnaha gaaraya waxaa jirta su'aalo ka guuxaya maskaxda dad badan oo ah cadaadiska iyo go'aanka Kenya ma wax uu ku yahay kali mise waxaa jira wadamo kale oo gadaal ka riixaya maxaa qiiladhaanta Kenya ku soo aadiyay markii ay Soomaaliya burbur dheer kadib bilowday inay ka hadasho mustaqbalkeeda iyo soo saarista shidaalka iyo kheyraadka kale ee dhaxaygaga ma jirtaa wadamo kale oo ay dib ku tahay in Soomaaliya ay soo saarto shidaalka iyo kheyraadka alla siiyay su'aalahan waxaan weydiiyay Cabdullaahi Nuur Xaashi oo ah aqoon ku nool London arrintan waxay ku xiran tahay oo sida hadda Kenya ay hadda u hadashay waa si ay u hadasho dawlad walba oo ilaalinaysa waxa la yiraahdo national interest-ga Soomaaliya waxay ahayd muddo wadan burbursan oo aan isku dibarinayn waxay hadda bilowday inay ka hadasho mustaqbalkeeda iyo soo saarka iyo yani mataqaana munaafacaadsiga kheyraadkooda markasta oo arrintaas laga hadlana waxaa imaanaya wadamo badan oo arrintaas lafteeda ku hareeraysan sida hadda shidaalka ay ka hadasho Kenya kuma ahan arrinta Kenya kaligeed waxaa ku jira wadamo badan oo shidaalka soo saara oo bariga ka soo saara wadamadii bariga ka soo saari jiray shidaalkoodii amni xumo ayaa ku hareeraysan oo sida hadda Ciraaq oo kale sida Liibiya oo kale sida Yemen oo kale Sacuudiga sii socon doonaan muddo fog sida la saadaalinayo Nigeria oo maalin kasta baybabka dhulka baran la jarjaro Ethiopia hadda doonaysa inay shidaal soo saarto hadda Djibouti heshiis la gashay waxa soo dhan shidaalkan baddu khatar ku yahay waana ka risk yar yahay bariga waana ka kharash yar yahay marka waa national interest dawladda Kenya oo ah dal dhisan oo la aaminsan yahay in arrintan ay garab uga helayso wadamo kale ayaa waxa isbarbar taagay muwaadiniinta dalkaasi oo ugu horeeyaan ganacsatada qaadka iyo warbaahinta wadanka Kenya maadaama waxa la isku hayo ay tahay dan guud haddaba maxaa la gudboon shacabka Soomaaliyeed ee isugu jira mucaarad iyo muxaafad waxaad arkayseen ganacsatada jaadka
oo garab istaagay dawladda oo yiri madax bannaanideena ku bedelan mayno jaadka ay Soomaaliya markasta ay nagu gulguulaan waxaan ka codsan lahaa runtii fursaddaas anigoo maanta ka faa'iideysanaya ummadda Soomaaliyeed ee afka Soomaaliga ku hadasha inay iyaguna garab istaagaan dawladooda oo national interestiga u taagan inay ilaaliso farmaajo ninkii ka soo horjeeda xasan cali khayre ninkii ka soo horjeeda gudahan xukuumadda ninkii iskhilaafsan yihiin ma ahan waa wax tagaya iyagu oo shalay yimid laakiin dalku iyo dadku ma ahan wax tagaya waa wax jiraya waana waxa muwaadinku u ilaashado muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya waxa uu taagnaa ku dhawaad 10 sano ee ugu dambeysay waxaana ku salaysan yahay sida loo cabirayo xadka badweynta India ee labada dhinac Soomaaliya waxa ay doonaysaa in cabirka xadka badda si toos ah loola dhiriiriyo xadka dhulka halka Kenya ay doonayso in la weeciyo baaxadda ay ku fadhida badda lagu murusan yahay waxa uu gaarayaa ilaa 100,000 oo kiiloomitir oo isku wareeg ah